بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal maanta waxaa ka hadlaa hal jawaab ayaan gabar u jawaabaa riyo dheer aad aragteen muuqaalkii hadda ugu dambeeyay gabar maxaad message iga soo dirtay waa muuqaalka halkaas saaran. almuhiim gabadhan waxay tiri caadi ahaan fil ard alwaaqic yani qof ay dulmiyey oo si xoog ii dulmiyey kabacdi waxay tiri subax kabacdi anoo seexday ayaa riyadan arkay. waxaan ku riyooday tiri qofkii aniga ee maxayd i dulmiyey oo jilbaha intuu ay qabsaday i baryaaya anigana waan ka diiday. kabacdi waxay tiri qofkii duruuf ayaa ka muuqatay. almuhiim waxay tiri caaro iyo 2 jiir waaweyn ayaa soo weeraray. kabacdi cod dheera waxaa laygu dhahay abshir 3 jeer ayaa laygu dhahay. riyada marka waa soo kooba yani maadaama si muuqaalka noogu filnaada waa soo boobsiyey. aragtida horta qof ku dulmiyey oo maxay ahayd ku baryaaya aad u fiican tahay. ida waxay tiri hataa aad u baryaay waan diiday. diiditaanka aad diidaysid horta caadi ahaan ma fiican haddii fil ardi waaqac oo hadda kusoo raaligeliya qofka marka qoftii ayaa tiri marka dambena asigoo marka inuu qof dumar tahay kale ma ogi. almuhiim laakiin fasirku waa hal hadduu nin yahay iyo haddii qof dumar ay tahay laakiin ugu dambeyn waxaad dhahaysaa asiga laga yaabo inuu nin yahay. almuhiim qof walba ku dulmay rag iyo dumar waxaa wanaagsan haddii caadi ahaan cafis ku weydiistaan inaad iska cafisid aad ay u fiican tahay maadaama qofka xoog ku dulmiyey waa dareemi karaa. almuhiim waxay tiri waan diidina inaad diidid waa sareen xagga rabbi adiga ka leedahay yani ilaahay waa sultadaad bahaysataa caadi ahaan qofka ku cafiye waxaad ku banaan xagga diiniyan inaad cafisid iyo inaad iska dhaaftid. marka riyada dhexdeeda waxay ku tilmaamaysaa inaad sultad iyo sareen adiga haysatid inuu ku baryaay qofkii aad ku dulmiyey. taas waxay tilmaamaysaa daciifnimo asiga xaggiisa ka timid daciifnimo iyo ciil iyo cadaab u dareemayo. laga yaaba inuu isfahmay inuu adiga xaq ka galay mise xataa hadduun isfahmin caadi ahaan fil ard waaqac dhibaato ayaa haysato. yani waxaa ku cadeynaysa daruuf iyo waxyaabaha dhibaatada ka muuqatay. caarada iyo jiirka asiga may erideen caarada iyo jiirka yani taa xoog ma u fahmin ma faahfaahinin. almuhiim caarada sideeda adiga reeda ku arkay sax maadaama adiga reeda ku aragtay adiga reeda kugu socotaa saasay u egtahay wallahu yaclam. yani caarada waa qof dumara daciifa laakiin cadow ah laakiin waa daciif awood ma leh. jiirka laga yaabaa inuu qofka hataa jiirka waa cadow marka waxaa macquul ah qofka markuu ku dulminayba inay dad soo direen mise inay dad soo adeegsadeen mise shayaatiin iyo jinba waa laga yaabaa dhianu iga qaarkoodba cadow ay noogu yihiin kuwaan muslimka ahayn jinka kuwaan muslimka ahayn isaga cadow noogu yahay. marka rubama qof cadaabo adiga kugu soo dir ay jiraan laakiin si walba adiga ayaa ka guuleysanaya riyada li'aanu riyada dhammaadkeeda fiiri waxaa lagu dhahay abshir weliba cod dheer. abshir waa ficlan abshir inuu rabbi yani arrin wanaagsan ku siinayo bishaaraysa ku leeyahay. marka 3 jeer maxay u noqotay 3 jeer ibnu siriin wuxuu leeyahay maadaama sheyga wanaagsan yani abshir taasoo kale had 3 jeer kusoo noqotay waa hubaal. abshir waa bishaaro maadaama 3 jeer ahayd waa hubaal. wallahu yaclam anaga aqoon uma lihin ilaah aqoon u leh wallahu yaclam. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay riyada sida fasalka ay ku noqoto weynaba tahay wallahu yaclam. waqti qofkan wuxuu dhahay waxaan ku riyoonay anigoo jaranjaro koraayo xagga saraa u socday 3 habeen isku xigta ayaana riyada igu soo noqotay. koritaanka jaranjarada waa darajo sare waa qiimo sare rabbi ku siinayo iyo arrin adiga aad rabtid inaad gaaraysid yani hadaf aad leedahay inaad gaadaysid mise waxaa waay inaad rabbi u dhowdahayba waayo adoo jaranjaro koraayo oo xagga sare u koraayo u dhawaasho rabbi ay noqonaysaa. muhiimadda waxaa waye jaranjarada si tartiib ma u koraysay si degan ma u koraysay oo si sahlan ma ahayd. haddii laakiin culeys ahayd ficlan adigoo hadafkaaga gaarayo laakiin dhibaato badan u maraysid waay. fuulitaanka jaranjarada hadday kugu cusleedo tacab kuga ahayd hadafkaaga waad helaysaa laakiin waa usoo dhibtoonaysaa. haddii laakiin si sahlan ahayd si sahlan ayuu rabbi kuu siinaa khaasatan haddii murugo iyo ciriiri iyo deeqada jireen. haddaa ku riyotay adoo jaranjaro intaa fuushadana kasoo noqotay rubama taraajuc yani arrin inaad samaysay aragtida dib ugu dhacday
hadday cibaado tahay li-anna u dhawaasho rabbi waa jarjarada ma dhihino hadday cibaado tahayna cibaadadii dib ugu noqotay hadday tahay mashruucaad kale iyo shaqooyin iyo waxbarasho inaad dib ugu noqotay haddii laakiin riyada dhexdeeda sida aad sheegtay aad dhamaysatay mise hataa go-aankaaga inaa ilaa ugu dambeeya aad socotid oo riyadii adoo jaranjaradii kala barkeeda maraha haddaa kasoo toostid dhibaato male haddaa marba xagga saraa u socotay waa sareen qiimo nooc walbay ahaato wallaahu yaclam. waxaan ilaabay inaad tiri 3 maalmood isku xigta igu soo noqonaysa sida hore idinku sheegay walaalayaal sida gabadha hadda riyada iyadoo 3 jeer bishaaraysa la dhahay rubama arrintan ay tahay arrin muhiim ah oo akiid ah yacni la hubo iyo inay arrinta adiga ahmid ah ay ku leedahay li-anno adiga hadda arrin ayaad ku tali jirtaa waxay doontaba ahaato arrintaa arrin ahmid kuu leewaay maadaama aad ku riyootay adigoo xagga sare u socdo rubama adiga aada duceysatay li-anno saasay u muuqataa riyada aada duceysatay mise sadaqo la baxday mise aad wanaag samaysay mise rabbiba aa kula soo jeclaaday inuu ku yiraahdo li-anno inaad tahay laga yaabo qof samray waad samartay waadna guuleysanaysaa calaa kulli xaal haddaa soo koobo adigoo xagga sare u socdo mise jaranjar ahaato mise wiish ahaado mise buur ha ahaato xagga sare adoo korkoraaba daaragtid waa darajo nafsiyan sareen qiimo u dhawaasho rabbi iyo riyooyin kuu rumoobay hadaf adigaa gaaraysid wallaahu yaclam. si aad iga aan idin jahwareerinin walaalayaal jawaabta hadda aan ka jawaabayo muuqaalkii hadda ugu dambeeyey kii ka horeeyey ayaa laygu soo qoray qaybta kommentigiisa waa kanaad aragtaan su-aashii horena muuqaalkii hadda ugu dambeeyey ayay ahayd marka adoo jaranjaro koraay sidaa idiin sheeg way wanaagsan tahay haddii hataa safarka ugu jiro waa ka guuleysi wallaahu yaclam. gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday saacad laysiinayo iyo sadaqo aan masaajid ku darsanayo waxaan ahay gabar weli ma guursanin. gabadhaa weli la guursanin aragtada iyadoo saacad la siinayo micnooyin badan ay tilmaamaysaa oo aadna wanaagsan. micnaha koowaad waxaa waye horta ilaalinta waqtiga waxay kaloo tilmaamaysaa maqal akhbaar wanaagsan adiga aad sugaysa mise arrin aad sugaysa waxay doonta haata mise arrin hadda aadan filaynin sidoo kale fursada guur mise shaqo wanaagsan. number 2 waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo masaajidka lacag wax ku sadaqaysana amiin sadaqada camuuman sadaqada waxay tilmaamaysaa hor istaagan balaayo yacni masiibooyin dhibaato sadaqad sidaasay caadi ahaan u wanaagsan tahay riyadan ugu wanaagsan tahay mogtiin. sidoo kale waxay tilmaamaysaa qaar iyo barako iyo duco rabbi ka aqbalayo. aan wax yar kaa dhexgalay saacaddaa riyada ku riyootay hadday ahayd mid jabsan mise halaysan sidaa hore uu soo sheegnaya haddayba waxa noocaas oo kale ahayd ma wanaagsan yacni adiga waxaabaay culeysi yar ciriiriyi yar waxyaabo soo raagay laakiin saacadda dee saacad way wanaagsan ahayd oo ciladii waxba lahayn way wanaagsan tahay. midda sadaqada aan ku socono maadaama aad masaajid aad ku sadaqaysanaysid taa waxay tilmaamaysaa niyad wanaagsan iyo u dhawaasho rabbi. waxay kaloo tilmaamaysaa sidoo kale arsaaqad kuu soo socota haddaa masjidka keligiisa le aan ka hadalno masjidka ma xasuustaan janankii hore wax badanaa kaga soo hadlay masjidka wax ka wanaagsan malaha riyada aad masjidka ku aragtid waa riyo aada wanaagsan. sidoo kale waxaa waye amni amaan nabadgelyo haddaa tahay qof la colaadinayay mise lala dagaalayay mise la daadaansanaya mise waxaan jirin laga sheegayo inaad nabadgelyo ammaani badbaado rabbi ku siinayo. camuuman yacni masaajidka aragtidiisa iyo sadaqada riyadaasaa wanaagsan gebigeed waa wax wanaagsan wax walba wanaagsan rabbi ka filo haddaad ahayd qof duceystana kasiiba fiican inuu rabbi ku leeyahay waan kaa aqbalay wallaahu yaclam. haddii riyada dhan isku soo kookoobo aragtada masaajidka sadaqada qof saacad ku siina waa riyo aada u wanaagsan. okay muuqaalka wax yar ayaa kasoo haray sida darteed inta kaloo muhiiman oo arkaan soo qaadayaa masajo aada u dhaadheer ayaa jira qaarkood waa kasoo tagay muuqaalkii ugu dambeeyey muuqaalkii ka horeeyey waayaa fasalka riyooyinka hadda aan soo qaatay ismaba lahayn intaanoo dhalo duubaysaa laakiin waxaa arkay su-aalo badan marka gabar waxay tiri wiil xiriir naga dhexeeyey ayaa wax badan masaj aada u dheer waay kaas muuqaal kale insha alla kasoo qaadan doonaa insha alla waxaana rajeynaa codkeyga markaa maqashid inaad soo koobtid waxa muhiimka ka hadashid. gabar kale waxay tiri waxaan ku riyooday wiilkii aan kala harnay yacni isku dhacnay wiil aan isku dhacnay
asoo igu duceysanayo oo dhahay ilaahay oo isii. Kabacdi cirka ayaa waxay tiri waxaa ugu soo dhacay ubax cad. Riyada waxaa ku jiro rumuus wanaagsan. Qofka oo xiriirka idinka dhexe kulley saasay u egtahay oo duceysanayo, taa waxay u egtahay inuu yahay qof alla ku xiran, inuu yahay qof qalbigiisa kheyr badan ku jiro, wanaag badan. Hataa haddaa idinka isku dhacsantiin, hataa hadduu ku xumeeyey, inta badan bolaaleel anaga markaa dumarna hadaa qof isku dhacno nin mise xiriir naga dhexeeyo guur dhici waayo waxaan dhahnaa ninkaas nin xun oo ahaa. Arrintaasoo keliya looma saarin karo. Waxaa kaloo jiri kara qofkaanayti inaaba calaf isku lahayn. Qofkaas oo qof wanaagsan yahay ayuu haddana dhici karta inuu rabbiada calaf kugu darin. Sidaa darteed ayuu kaaga haraa, sabab uu kaaga hara ayaa meesha imaanayso. Laakiin micnaheed ma hadda qofka calaf isku yeeli weyne inuu yahay qof xun. Taas ayaa rabay horta inaan bayaaniyo, waayo wax badan anaga hadaa dumarnahay midaasaytii tuhunkaasaan qabnaa. Qofkaas ninkaas nin xun oo ahay cidlo iiga tagay oo kale. Maha nin xun calaf ma jirin. Almuhiim riyada waxay caddaynaysaa inuu wiilkan yahay wiil saalixa, rabbigiisa ku xiran yahay. Rubamaa ducadaas ku riyootay isaga duceysanaya darteeda rabbi isku kiin soo celin doono. Wallaahu yaclam. Haddii kale waxay kaloo weliba noqonaysaa inuu soo noqon doono isguursan doontaan, waayo asiga wuxuu dhahay rabbi sii. Sidoo kale arsaaqad iyo barako iyo qaar badan asiga xaggiisa u soo socdo. Waxaas caadna wuxuu tilmaamayaa wanaag badan, dhowritaan iyo inuu rabbi riyoon u aqbalayo. Sidoo kale walaalyaal ha ilaawina ubaxa inuu yahay calaamada oo jacaylka, yacni astaan inuu jacayl u yahay. Sidaa darteeda kheyr badan ayay riyadan tilmaamaysaa. Wiilkan waxaa ka muuqata waxaa cad yacni inuu yahay wiil rabbi ku xiran. Wallaahu yaclam inuu caadi ahaan siga duceystay. Kulley bisaas ay riyadu u egtahay. Halkaasaan kusoo koobaya walaalayaal. Waa idin wada salaamaya. Waxaan videoga hadda aan su'aalaha ka soo qaatay aan ka arkay dad badan salaamayo, waan kuu xiisnay igu leh soo noqod wacan. Aad ayaad u mahadsantihiin, aadna waa idin jeclahay. Sidaa darteeda insha Allah hadda ka bacdi ima weyn doontaan. Idinkana muuqaalada inta awoodiina sheer gareeya, yaana niyijabina sheer gareeya, asxaabtiina la wadaaga. Like ta ha badato, daawashadana ha badato. Assalaamu calaykum.